يعيشون في الحاضر وحيكونوا ليهين وقت حالقة مسارده وحير هذان إحنا أولاد النهاردة كلمة أبدا نقولها الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفت بدن ميل كasta jooga ee inagu xidhan dhammaantiin waa idin salaamay walaalkiin Axmed Aadan weeye. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخيارتا waxa loo yaqaan mindset ama fikirka maskaxda waa arrin aad u ballaaran oo buugag baa laga qoray oo intaasoo muxaadarooyin baa dad fara badan ka bixiyeen luqad kasta noqoto. marka waxaan ku dadaalay videogan yara gaaban dadka aan hore u maqal mindset waxa uu yahay inaan xoogaa u yara taabto oo fikrad ka siiyo. marka idinku baaritaankiina sameeya buugag baa jira maktabadaha ama librarieska laga helo oo faahfaahin badan aad ka helisid ama xataa haddaad eegtid qoraallo quality ah oo social media laga helo. maanta pageka yar ayaan rabaa inaan inoo turjumo walaalo badan baa markastana weydiiya kelmadda mindsetku waa maxay. marka mindset laga hadlayo waa fikirka oo qofku si u fikirayo wax kasta adduunka aad qabanaysid aad ka shaqaysid waxaad u baahan tahay inaad mindset fiican yeelatid. mindset mind alcaql bay ka timi mind inuu fikirkaagu inuu yahay fikir saliim ah ayaa la doonaya. marka laba u qaybsamayaan mid waxaa la dhahaa poor mindset midna rich mindset. si cajiiba ayuu u sawiray dhinacna wuxuu dhigay markuu qofku fikirkiisu yahay fikir taajir ah ama rich mindset oo qofkaas markasta guul wuu gaadhaa. dhinaca kalena wuxuu yani waa dimaaqii oo la sawiray dhinaca dimaaqa qofka dimaaqiisu ma maskaxdiisu ay tahay rich mindset wuxuu u sawiray waa miskax nadiif ah. haddaad aragtaa dhinaca midigta miskax nadiif ah oo qashin iyo waxba ku jirin. dhinaca poor mindsetkana wuxuu dhigay miskax madoobaatay oo qashin oo dhan ku jiro. marka miskaxda nadiifka ah iyo miskaxda nadiifka ahayn ee maaragtay qashin ka buuxo wuu kala saaray. bal aynu ka bilowno poor mindsetka ama fikirka faqiirka qofka fikirka faqiirka haysta baynu ka bilaabanaa. okay wuxuu yidhi poor mindsetku misses the old days. markasta wuxuu xisoonayaa waqtiyo tegey. عرفت waxay tiraahdaa لا تبكي على اللبن المسكوب يعني caanaha daatay ha u ooyin خلاص يا أخي koobkii caanaha wuu daatay خلاص يا أخي شوف لك كوب kale raadso خلاص. weligii wuxuu ka fikirayaa wallaahi berigaa wallaahi suuqaasaan ku jiray wallaahi waxa weeye suuqu dhulku marayay haddaan berigaa iibsan lahaa yaa salaam maanta lacag baan heli lahaa yaa akhi insa iska ilow ilaa yani weligaa haddaad noloshaada ku lumisid 10 sano ka hor 20 sano ka hor wax dhacay meel ma gaadhaysid. xaqiiqa wey taas. marka misses the old days daa'iman wuxuu ku fikirayaa waqtiyadii hore oo tegey oo dhaafay oo dad ka faa'iidaysteen. ha ka shallayn iska daa khalaas wax kaa tegey ha ka shallayn ha oranin maanta oo dhan haddaan samayn lahaa ama haddaan samayn lahaa. marka taas waa poor mindset. dadka rich mindsetkana wuxuu yidhi lives in the present waxay ku nool yihiin yaciishuuna fi lxaadir waxay ku nool yihiin waqtiga xaaliga ah. مسارده وحير هذان إحنا أولاد النهاردة كلمة أبدا نقولها الحقيقة إحنا أولاد النهاردة بير مسارده كانوا يحكوا فكرية وحا فيما مضى كانوا يحكوا فكرية ما أنت اليوم ما أنت وقت حالي أن تشوفه ما حنق عندك وياه سيدي نفتي إذا ما وقتها يبدل كرا تحسي كل دوين تكلم نقول بينا fear of missing out كبور مانسيت كأما فكر كفقير كله دائما wuxuu ka baqayaa inuu wixii maaragtay uu dhaafo. fear of missing out wallahi wuu dhaafaya yani maanta dhan khalkhal buu ku jira. mashruuc baa loo keenayaa project baa loo keenayaa barnaamij baa loo keenayaa war barnaamijka ka faa'iideyso مثلا daa'iman wuxuu ku fikirayaa inuu wixii dhaafo. daa'iman wuu fikirayaa wuxuu isleeyahay suuq waa ku dhaafaya tijaarada ama businesskaasu waa kaa tegayaa khasaarad gelaysaa daa'iman waa fikirayaa. waana waxaynu naqaano FOMO fearing of missing out waa FOMO waa loo yaqaanaa. يعني qofka waxaa gelaysaa cabsi baa gelaysa inuu wixii ka maqnaado oo uusan ku jirin. waa welwel mar kasta qofka welwel buu ku jiraa inay fursad dhaafto inuu jaanis dhaafo waxyaalo badan inay ka tagaan. taas waa FOMO loo yaqaanaa. waxa weeye waxyaalaha moogtahay aad moogtahay dadku inay isaga ilaaliyaan weeye. marka FOMO waa mushkilad weeye. taasna waa inuu qofku iska ilaaliya markasta inuu ka taxadara inuu opportunity ku dhaaftay ama janiskaas ku dhaafayo ama uu ku dhaafay taas waa mushkilo weeye. laakiin dadka rich mindsetka maxay sameeyaan
learn from mistakes. qaladada ay galaan bay ka faa'iidaystaan. Matalan maanta suuq buu galay, suuqaa wuu ku khasaaray. war waxa kan aan maanta ku khasaaray sababtu waa maxay? sidee wax u dhaceen? xaggee qaladku ka yimi? wuxuu ka faa'iidaysanayaa qaladadii u galay. learns from mistakes. dad badan waan arkaa oo Soomaali ah marka ay suuqyadan ka ganacsanayaan kama faa'iidaystaan mistakeyooda, qaladooda kama faa'iidaystaan. qalad buu gelayaa maanta, haddana mar kale ku dhacaya, haddana mar kale ku dhacaya, haddana kama fikirayo war wixii hore muxuu ka yimi, xaguu ka yimi, war qaladkii hore xaguu ka yimi, kama fikirayo. marka taas waa muhiim weeye. ta ku xigtan u gudbaynaa dadka poor mindsetka wuxuu ku tilmaamay things rich are evil. dadka poor mindsetka waxay moodayaan qofku inuu ku fekero inuu horumar fiican gaadho ama lacag fiican helo ama dhaqaale fiican helo ama dee taajir noqdo. fikraddaas waxa weeye waa fikrad, waa shar weeye, ma fiicna. things rich are evil. bilcaks qofku rich wuu noqon karaa, taajir wuu noqon karaa. waxa weye alxamdulilah rabbi alcaalamiin. waxa weeye subxaan allah, saxaabadii nebi maxamed sal ly slam saxaabo badan ba ahaa dad rich ah oo akhniyaa ah. alxadiis الnabowi saxiix alyad اlculya khayru min alyad الsufla. marka things rich wuxuu haystaa inay tahayba wax moogtahay yani shar ah ama dhib ah. taas ma fiicna. laakiin dhinaca kale wuxuu yidhi helps others succeed. kuwa rich mindsetka waxay ku dadaalayaan dadka kalena inay najaxaan, inay guulaystaan. way ku caawinayaan inay wax baraan, inay moogtahay jahilnimada ka saaraan, inay ku dadaalaan dadkaas inay dhaqaale helaan. waa dadka rich mindsetka saas u fikra. haddaynu gudubno poor mindsetka dhinaca kale, wuxuu yidhi complains constantly. yacni mar kasta waxa weeye waa cabasho, mar kasta intaa wuu cabanaya. waxaad arkaysaa qofkaasu intaa cabasho ku jira, intaa waa ishtakoonaya, mar kasta mushkilad buu keenaya. yani maba fikirayo 24 saaca ya akhi, wallaahi bilaahi meesha tan. Soomaalidu waxay yidhahdaan war xagee ka shaqaysaa? war meel xun baanu ka shaqaynaa bilaa faa'iida ah. war wax xunoo caata ayna siiyaan oo waxba ahaynba. war wax xunoo qashin oo caata ah bayna siiyaan, waxna ma qaadano, waaba ku faqiirnay buu ku leeyahay. xagee wax ka baratay? war meel yaroo xunoo qaab daran oo jaamacad xunoo ayaanu wax ka soo qaadan. oo guri ma dhisatay? war meel yaroo qaab daran baanu ka dhisano bilaa faa'iida ah. war caafimaadku miyi? war managaaba naftii baban haysee. hadda waa maasha allah caafimaadku soo fiican yahay. daa'iman complaints. yani mar kasta qofkaas waxa weeye waa ishtakoonaya. taas waa qalad. qofka rich mindsetka ana, qofka fikirkiisu taajirka yahay waxa weeye doesn't complain, ma ishtakoodo. xataa haddii mushkilada hayso, dhibaato hayso, ma ishtakoonayo, ma dacwoonayo. daa'iman qofkaas waxaad arkaysaa isaga oo shaqaysanaya, isaga oo daa'iman wax kasta u qabanayo inuu u arko inay sax tahay. poor mindsetka dhinaca kale wuxuu ku leeyahay never likes to learn. maba jecla inuu wax barto. war orodoo faa'iidayso, war cilmi qaado, war wax baro, war may. waxaa laga yaabaa inuu maanta oo dhan gurubo whatsapp ku xiimayo, gurubo telegram ku dhex jiro, meel kasta ka qaylqaylinayo, 5 sano 4 sano 5 sano 6 sano inta habeenii maalin group ku wareegayo, su'aalo dadka weydiinayo, ebelo waxan waa maxay, tani waa maxay, taas waa maxay. 6 sano laga yaabaa. anu waaba garanaya shakhsiyan, dee dad baan garanaya ku jiray telegramada markii 5 sano oo weli su'aashii wallaahi alcadiim ya jamaaca, su'aashii la isweydiinayey maalan 2020gii ayuu maanta isweydiinaya, gurbada soo dhigaya oo leeyahay waxaas yaa yaqaana. maca inuu fursad buu haystay inuu wax barto, inuu isagu hasbaro, inuu youtube-ka xitaa ka baadho. never likes to learn. taasna waxa weeye waa laga taxadiraa. wax baro, tacalam meel kasta wax ka baro, ajnabi, soomaali, wax nooc kasta ka baro, meel kasta ka baro, meel kasta baadh, google ka baadh, youtube ka baadh, ChatGPT ka baadh, meel kasta waxaad ka baran kartaa. laakiin dhibtu waxa weeye qofku hadduu meeshaas ka fadhiyo maanta oo dhan, dee asamaau laa tumtiru dahaban walaa fida. soo mahayn. rich mindsetku wuxuu yidhi constantly learning. mar kasta si ma og tahay calaa tuul qofkaas wax buu baranaya. maanta course buu qaatay, mid kaluu raadinaya, kan buu qaatay ka kaluu raadinaya, kaasuu qaatay ka kaluu raadinaya. abadan qofkaas waxaad arkaysaa qof aan ka daalayn cilmiga. cilmigu ma aha inaad maanta raa jaamacad baan ka baxo khalaas ugu fir. la waxaan aynu naqaano cilmiga waa 0.01 nothing, xataa ka yar 0.01. cilmigu ma dhammaado. alcilmu baxar wey, baxar. haysarkin maanta dad kors yar qaatid ama waxyaar yar qaatid inaad tahay caalim inaad tahay. la cilmigu waa weeye.
cilmi waa ballaaran yahay waxaan aynu naqaano oo dhan waa nothing wey. Okay, ta ku xigta wuxuu yidhi qofka poor mindsetka afraid of investing. taas waa sax. hadalkan waa hadal cilmi ah oo laga soo shaqeeyey. waa runtii afraid of investing. adduunkan aynu ku noolahay dadku maalgashi bay sameeyaan, ama dad dahab iibsanaya, ama dad iibsanaya dhul, ama dad iibsanaya cryptocurrency, ama dad iibsanaya maaragtay assetyo kala duwan, ama dad guri maaragtay iibsanaya oo isla investing ku sameeya kiree. waxaasoo dhan waa faa'iido weeye. qofka poor mindsetka haddii la yidhahdo war investing samee oo xoogaa yar oo xaqalcaano meel gasho, xaqalcaano kala soo baxo ilmahaaga ku biil oo investing maalgashi samee, may wuu baqayaa. maya dee haddaan meeshaa geliyo dee waa lay dhacayaa, dee waa khatar weeye, dee ishaa laygu hayaa, xoogaaga yar baa layga biliqaysanayaa, wallaahi anugu ma garanayo. afraid of investing, waa baqayaa mar kasta. qofka rich mindsetka ah bilmuqaabil, yani marka dhinac kale la eego, quits bad habit, caadadahan xun oo dhan uu iska khaarijiya. waa qof ma ogtahay yani de mindsetkiisu waa saliim weeye, waa rich mindset ya. quit bad habit, bad habit kan oo dhan dhinac buu saaraya. hadday noqoto investing uu baadhaya, wuu eegaya meesha saxa, dhag uu ku tuuraya. adduunyaduna waxa weye waa faa'iido iyo khasaaro. business kasta aad gashid adduunkan waa faa'iido iyo khasaaro weeye. ma jiro qof gelaya business oo successful ku noqonaya habeen iyo maalin lacag ka dhigaya. mana jiro qof business gelaya oo mar kasta khasaaraya. laa budda mar inaad wax ka heshid weeya, soo maa alaysa kadalik. ta ugu dambaysa poor mindsetku, qofka poor mindsetka ah fears change. inta wuxuu ka baqaya isbedelka. fears change, qofkaas cabsi baa ku jirta. wuu ka baqaya haddii la yidhahdo war waxaa noloshaada bedel oo maaragtay mindsetkaaga bedel oo horumar samee. wuu baqaya change. may anugu halkaygasan taagana, waa baqaya. haddaad tiraa wararada dhoof oo tag oo wax soo baro oo jaamacado raadi oo dadaal oo shaqooyin raadi, may halkaygan fadhiya, may meesheeda ka dhaqaaqi maayo, waa baqaya. walaakin bilmuqaabil marka la eego dhinaca kale, qofka rich mindsetka ah takes action buu qaataa. maanta barnaamij baa soo baxay, barnaamijkaa wuxuu arkaa inuu faa'iido leeyahay, action buu qaadanaya markii uu ka faa'iidsanaya. barnaamij kasta oo la furo oo fiican oo faa'iido leh, waxaad arkaysa qofkaas wuu eegaya, wuu baadhaya, wuu akhriyaya, action buu qaadanaya. micnaheeduna waxa weeye go'aan buu gaadhaya. marka waxaan jeclahay insha allah inaan si yaro basiit ah oo fudud idinku soo gudbiyey. dad badan baa moogtay luuqa aad igu soo gala oo i weydiiya kelmadahan mindsetkan iyo waxyaalaha kan. marka insha allah youtube-kan iminka aan sameeyey, waxaan jeclahay dad badan inay ka faa'iidaysteen. idinkuna ku bakhaylina insha allah sii shargareeya, like saara, kommentiyada ka bixiya, kuna xidhnaada youtube-ka insha allah mar kasta. waana walaalkiin axmed aadan weeye. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.